بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ومحدين حسن محمد حسني وحانا هاي قدومي كحجان ككواد أوركا إسوتاقة صحفيين الصوماليات مركا مقعيس لسوق قابي الله يقانا في السج سيدو كلا وحانا هاي قدوميها أوركا صحفيين كونفور قلبات سوجة هدي فافهين رانكاسي سندي لابد كون إيو كوي لبعتانكا توبردي لقبتي oo ay qabteen ururada kala duwan isla markaana ay ka faa'iideysteen wariyaasha ka howlgala deegaanada koonfur galbeed sanadkan waxay ahaayeen dhowr tababar oo mowduucyo kala duwan looga hadlayay haddaan qaar ka xuso waxa ugu weynaa tababaradii sanadii 2021 wariyaasha koonfur galbeed iyo warbaahinta aynu uga faa'iideynay tababar looga hadlayay doorashooyinka oo maadaama wadanka doorasho uu galay sida aad la socotana aqalkii sare doorashadiisa la soo gabagabeeyay qaarkood waxay dhaceen ka hor doorashadii aqalka sare muhiimadda tababaradaasi loo qabtayna waxay ahaayeen in wariyaasha koonfur galbeed ay ka qayb qaataan in warar sax ah qaabka tibinta doorashada helitaanka xogta in bulshada ay macluumaadka u gudbinayaan in ay ahaadaan kuwa sax ah oo habtabinta saxda ee doorashooyinka ay ku saleysanaato taasna runtii aad bay u soo gashay anagoo kaashanayna wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed waxa hirgalay ilaa 3 tababar oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka sanadka 2021 waxa ka faa'iideystay kii koowaad ilaa 30 wariye oo qaarkood laga keenay gobolada kale ee koonfur galbeed sida Boqol iyo Shabeellaha Hoose wuxuu ahaa tababar runtii muhiimad gaar ah u lahaa wariyaasha ayna sahashay in warbaahinada ku yaala koonfur galbeed ay ka faa'iideystaan haba u badnaadaan wariyaasha magaalada Baydhabo maadaama Baydhabo dhowr warbaahin ay ku yaalaan marka taas baana keentay in wariyaasha Baydhabo u badnaadaan marka aad baa loogu wada faa'iideystay qaabkii tabinta doorashooyinkii aqalka sarena runtii waxaynu tustay in wariyaasha wixii aqoon ah halkaas ay ka barteen inay ku soo bandhigeen waxa aad loo amaanayay wariyaasha sida ay uga qayb qaadanayeen arrimaha doorashooyinka iyo tabintooda iyo doodihii dhacayay iyo in bulshada doodo loo qabto loo bandhigo qaabka ay wax u socdaan marka kaas mid buu ahaa iyadoo ay kala duwanaayeen waxa kaloo jiray in mid looga hadlayay qoondada haweenka maadaama badana la yiraahdo wariyaashu waxay fursadaha ay siiyaan ragga marka laga hadlayo siyaasiyiinta iyo doorashooyinka waxa badana la yiraahdaa haweenku door lama siiyo doodaha lagama qayb geliyo riboodyo gaar ah lama siiyo waxa jira haween guuleystay ha ahaadaan ku guuleystaan dhanka ganacsiga ha ahaadaan dhanka waxbarashada waxaad arkaysaa haween ku guuleystay waxa kaloo jira siyaasadda in haweenka qaarkood meelo muhiim ay kaga jiraan oo doorashooyinka qaranka guddiga doorashooyinka qaranka aad la socoto in xaliimire ay wax ka tahay in ra'iisul wasaare ku xigeen dalka iyo wasiiro arrimaha dibadda iyo wasiiro kale haween door muhiim ah ay ka qaateen kuwaas oo dhan waxay u baahan yihiin in laga sheekeeyo oo guulihii ay gaareen laga hadlo marka si taas loo muujiyo oo haweenka musharaxiinta ee kuraasta aqalka hoose iyo aqalka sare u tartamaya in la muujiya ayaa marka waxay naga saaciday ururka saxafiyiinta koonfur galbeed in tababar aan qabano oo ilaa 30 wariye loo qabto qoondada haweenka in wariyaashu ay ka hadlaan kaliya doorashada angalab badan bay leedahay kursi baa la doortay intaas qof ama musharaxa kaliya ma ahan dadka qaarkood taariikhay leeyihiin bulshadu waxtar weyn bay u hayaan waxbay u qabteen marka haween baa ku jiri kara marka in haweenkaas si gaar ah looga hadlo ayay muhiimadoodu ahayd marka wariyaashu aad baa loo tababaray 30 saxafiyiinta ee warbaahinta kala duwan ee koonfur galbeed ka socday gaar ahaan waxay ahaayeen kuwa loo qabtay Baraawe iyo Baydhabo
maadaama labada magaalo ee doorashooyinka ay ka dhacayaan ee koonfur galbeed marka laga hadlayo labadaas magaalo ay tahay wariyaashana in warbaahinadaas ay ka kala socdaan baa umsom ay ugu talagashay anagana waan ka soo xulnay oo Baraba iyo Baydhabo ayay wariyaashoodu ay ahaayeen marka 18 ka mid ah waxay ahaayeen gabdho wariyaal ah oo Baraba iyo Baydhabo ka kala socday warbaahintooda qaarkood telefishan qaarkood idaacadaha maqalka qaarkood kuwa qorayaal oo badana baraha bulshada isticmaalay ahaayeen marka way ka wada faa'iideysteen saddex maalin buu socday tababar aad qiimo u leh oo laga faa'iideystay buu ahaa marka waxyaabaha aan ku taamayno ayay kamid ahayd umsamna aad bay ula dhaceen oo in haweenku door gaar laga siiyo trainingaas maadaama waxa laga hadlay ahayd 30% arrimaha doorashada haweenka laga hadlo waxa kale jiray mid looga hadlay xeerka saxaafadda oo ururka gabdhaha saxafiyiinta SWGO markii magaciisa la soo gaabay loo yaqaano oo iyagana Baydhabo ay ku qabteen 25 saxafiyiin ah ayaa iyagana ka faa'iideystay warbaahinta Baydhabo waxay ahayd sababta tababarkaas waliba dadka qayb galay waxay ahaayeen wariyaasha oo muddo dhowr sano ku soo jiray xeerka saxaafadda ama warbaahinta ka howlgalayay sababta loo soo xuleyn waxay ahayd in xeerka saxaafadda laga doodo marxalad kala duwan buu soo maray waqtigii dawladda Sheekh Shariif dawladda Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha ka ahaa ilaa dawladdan hadda farmaajo madaxweynaha ka yahay markasta waa la soo celinayay xeerka saxaafadda oo madaxweyne kasta uu saxiixo dood baa ka taagneyd waxyaabaha doodaha ka taagnaa waxa kamid ahaa markii idaacadda ama warbaahinta war qalad uu ka baxo yaa loo raacanaya warkaas yaa loo xiraya oo xabsi u galayo yaa loo ganaaxaya waxa jirto hadaan qaldanayn in lacag $3,000 ah in la ganaaxayo xabsina uu mutaysanayo warbaahintii war qalad ka baxo marka dood baa ka dhalatay qodobkaas oo qaladka yaa xabsi loo gelinaya ma wariye report ka keenaya ma milkiilaha idaacadda ma agaasimaha idaacadda